hiba maxamed guddoon hiba nuura iyo fanaaniin kale ayaa soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee dawlad goboleedka Jubbaland. Saabiriin Sahal Maxamed ayaa warbixintan inoo faahfaahinaysa. hiba maxamed guddoon hiba nuura oo kamid ahayd hawladii waabari taariikhna ku lahayd fanka Soomaaliyeed ayaa soo gaartay magaalada Kismaayo iyadoo ay soo dhaweeyeen madax ka tirsan dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. hiba nuura oo ay wehelinayaan fanaaniin kale ayaa markii ay soo gaareen magaalada Kismaayo kadib waxaa dalxiis loo geeyay deegaanka Goobeyn oo qiyaasaan 13 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo halkaasi oo ah goob aad u qurux badan. Socdaalka ayaa waxaa ku wehelinayay wasiirka maaliyadda dawlad goboleedka Jubbaland Mudane Cabdirashiid Jire Qalinle. hiba maxamed guddoon hiba nuura oo Jubbaland TV la hadashay ayaa ka warbixisay imaashaheeda magaalada Kismaayo waxayna sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay nimcooyinka yaala dhulkeena hooyo. hadba meel baan ka joognaa imika waxaan joognaa beer aad iyo aad si qurux badan u baxday oo qiimaheedu badan yahay oo aan la qiyaasi karin say u baxday beerahoo dhan waa wada sidaa laakiin xagga hore way nagu yara fog tahay lama aadi kara halkii ugu sokaysay dhiiqaduna way badantoo webigaas oo butaacay marka waa beertii ugu sokaysay laakiin beeruhu saasay salkaysugu hayaan waddankoo dhan hambalyaannu leenahay Soomaaliya dhulkiina ku soo noqdo beerta qof walba gobolkaad ka timi xataa waxaad ka beeri kartaa laba qoodi ka beer xataa. Saabiriin Sahal Maxamed, Jubbaland TV, Kismaayo.